shabaab dhex marteen miya habeen madow wadada marnay anagoo hubeysan baabuurka mistaagaa miya baabuur dhan ima istaagin tali wax cadowga goobta joogana malaha si seefa subaxnimo shilaanbood ku tagnay aniga ninkaan ka howlgelin oo sonikey oo laga shaqeynaya iskula qoranaa aniga sargaal bilismitarian staff waa ninkaan sargaalkiisina shaqadoona gula jireen habeenkii shilka dhacaya maqribada oo kale aniga xaafadida usoo hooyday shaqadeeda waa ka soo dhammaaday xaafadeeda markaa imaaday xaafadeeda joogay ciyaaraha iska fiirsanayay muddo 5 saacadood 4 saacadood ma taa rabay inaan shaqada u laabto askarigan walaalkayga ay soo wacay wuxuu ugu dhahay xaafadda jooga ee saldhigda u socotay soo mar sidii ugu imaaday askariga intee ka joogtaan xaafadda goob xaafadda kamid oo waaxda u dhow ay u tilmaamay waa askarta ilaaladan ay fadhiistaan goobta ugu imaaday nawadan dhaa waqti ay u socdaan inay shaqaale ka rabaa sargaalka ay wacay tubo meeshan ku taala biyo ka soo caba ugu dhahay goobtana 4 saacadood waa ilaaladan habeenkii meesha 4 saac ka bilaawday iyaga amniga sugan iyaga lagu ogiyaa oo bakaaro amnigeeda wadooyinka laga soo galaayo wiilashii meesha fadhiyaan oo ninkaan wiil kamid oo qori ku qabtay alf la dhaay iscadee oo ku dhaashay shaatiga kor u qaaday maxaa tahay iscadee sidoo markuu qori ku qabtay idikaarkiisa uu tusiyay askariga uu iscadeeyay askariga markuu kaligiisa soo ma aniga li ma jeedaan luqan ku jira mobile ko hadlo asaas sugooya markii qori uu qabtay kadib uu qori uu ka dajiyay askartii isku waceen askariga ana xaqiijin wuxuu yahay goobta uu soo galay meesha ka imaaday si loo xaqiijiyo qorigiisa in la feesgareeyo la rabay qorigiisa la feesgareeynaana amaanka oo furan yahay qoriga godka baaska saaran qasnadna ku xiran taas doon baalood ku jirto aniguna luuqa ku jira xabadii qorigaas isku dhignaa ka baxay xabada 3 baalood 4 baalood gaarayaan dhawaaqooda ku istaagay ila askariga meel igu maqana kooga sugay xabadii markaa ku istaagay goobta aad tagay waxa arkay askariga walaalkayga oo laba askari kula dhigan tahay marxuumka dhimana Allah u naxariisto oo darbi wasaas u tacsan oo dhaawac waxaan ku dhahay askari qof dhaawac gadaashiina taagan qorigan si daaya askariga dhaawac gadaashiina taagan u soo jeestay waxa ay soo jeestay waa in qof walba qorigiisa ku feesgareysnaa markaan arkay macnaa inuu marxuumkaas dhaawac meesha jiifay iyo askarigan qoriga daala dhaa oo diidan yahay ana arkay waxa go'aan ku qaatay in laba baalood ku rido si qoriga u sii dayaan marxuumkaas dhimana dhaawac ee meesha ku soo jeestaan askarigan walaalkayga xageeygu soo cararay qofkii dhaawac ahaayna meesha jiifin waa tali unuga meesha ku qornaay banaanka ka ahaa geesoo ka taagnaay iyagana dhaawacii qaateen askarigan xageeygu soo orday waa israacnaan askarigan warsay wax u jiraan waa ragaa maxaa idinka dhaxeeya waxa isku dhigteen ani 4 saac xaafadda soo galaa shaqada waa imaadaan ragaa walaaleyga ilaalada shacabka ee meesha lagu ogyahay waa askar amniga sugayso taada iyo teedina busugayaan mar walba waxa isku qabsateen askartaan isku haystiin waa ragaan askartaan jagboontiga isku soo taagnoon dhaani mar walba ragaan waa isqawnaa taliyayga robot qaldan ay gudbiyaan way dacweeyaan camal marka saas soo dhaha kadib ay dacwada waxa ka horeeya xabadaha aan ku soo istaagay maxaa waan xabadaha dhawaaqooda ku soo istaagay baaska ayaan 4 baalood ayaan hoos u dhacayaan maxaa waa yees wax ku gaareen ani 2 baalood kor u riday waa u jeeday askariga meesha jiifa dhaawac ahaa yaa dhaawacay xabada ku dhuftay see wax u jiraan hadda kuma faakiriyo nabad meeshan naga wado ila askariga hadaa si fasaxa si daayo aniga eeda sanaa kaliya noqonaa askariga meesha jiro iyo meesha ku maqan yaana li weydiina askariga si aan robotkiisu ogaado waa daba kacay waa israacna xaafad sonikey oo asiga oo yaqaano oo geey xaafadii habeenkii seexane waa si weydii wali qoriga meeqa baaloota ka dhacaysa wax u jiraan xabadaha baaska ku soo istaagay oo meesha ka dhaceen yeese wax ku gaareen in qof dhaawac meesha jiifa u jeeday see wax u jiraan ay sheeg hadaa dhib geystay saldhigna geey robootka iska warbixi waa diiday askarigan aniga hawaan baa baxa gobol aada see wax u jiraan markaas ku sheegaa waxa ay soo baxday askarigan in dhibaato uu geystay qorigiisa dhibaato oo ka dhacday si kasna ay ka in uu isdifaaco isdhahay in qoriga qofka loogu dhigay ninka isdifaaco isdhahay qorigana amaankiisa oo furnaa isdifaac iyo farta u gashay xabadii sidii ku baxeen eelashoona geey yar walaalkiis miyaa saaxiibkiis miyaa oo wacay lacag $100 la soo tuuray caasilo isku xiriiriyo caasigii oo nisaaray si askarigan aniga adaa si fasaxo askarigan si daayo oo baxaan dho aniga aan xamar xageeda soo aado aniga waa askarigan waa li weydiinaa eedeysanaha buuxana aniga noqonayo
si aan eedaysnaa buuxaan u noqonin oo dembigiisa aan u kala saaro awgeed aan askari aan u daba kacay oo ku ilaalinaya asaan ku ilaalinaya qorigiisa iyo dembigiisa isku ilaalinaya bulmareer iskala tagnay bulmareer markaa tagnay muddo bilaa meesha joognay yarka darawalka oo gurigiisa oo wada joognay asagii is yaqaanaan yarkii guriga wada joognay askari military oo loo afal xukumayo oo meesha noogu keenay si amniga askarta ugu wareejinay hubkii anagaba sidaan ugula soo qabtay shanabood nagula keenay adiga ninkan maxaa iskii daba dhigayso laba ciidan kale ma tihiin waxaan iska raacay shaqada howlgelinta aniga sargaal booliis military staff oo ah sargaalka booliis military ninkan taliye-xigeenkiis hal goob ka wada shaqeynaa subaxii ka howlgalnaa isku xaafadna waa nahay shaqadaasna waa naga dhaxaysaa saas awgeed oo ii soo wacay oo shaqada igu soo maray dha marka aad bixayseen aad iyo aad shabaab dhex marteen miya habeen madow wadada marnay anagoo hubeysan baabuurku ma istaagay miya baabuur dhan ima istaagin taliya wax cadowga goobta joogana malaha si seefa subaxnimo shilaanbood ku tagnay xabadaha adiga ah ridama dilin miya qofka dhintay aniga goobta markaa imaanayo marxuumka dhimanayo asoo dhaawaca goobta uga imaado oo gees taagan labada nin oo qoriga farta ku dhacdo la dhahoyn oo qoriga ay kula dhegan yihiin kadib waxaa go-aan ku qaatay aniga laba baalood kor u rido si marxuumka dhimanaya dhaawac loogu soo jeesto ninkaana qorigiisa loogu sii daayo la feesgaray waayo ani xaggeyga u soo aaday